حلينا بريا صبر كاسين نقوضنا نلشة وحتى مادياتك يدا وعلى ده تيمور لينك نبغرتو ينكي هراء كم دبوها وهذا أنا عيدا هو تيبا لشبيي markii la soo jabiyay ayuu god galay soo wax haynin isagoo iska quuso godka ku jira baa la yiri ayuu waxa arkay godka quraanjo yar oo meel fuuraysa uu eego dhagax yar si koraysa markaas ay soo dhacday markaas ay ku celisay markaas ay soo dhacday markaas ay ku celisay markaas ay soo dhacday waxa la yiri intii uu eegayba quraanjadii 17 jeer meeshii tijaabisay mar 17aadkii bay ka gudubtay tabeetana wuxuu ka fakiray ninkii boorka war maanta ما أن مربى اللي يسوي بيه ونسديبيا قرآن جانا اللي هي طبعا قربة يشبته ولي ووضع مرت الضبيط طبنات كيف كبحضي then I will do another time وين أنكو عليه عنه وقوليست تد بدن بوشيري تطارك ما لا بدن بكبودي واحد بدن مشاكل ورجع وردتك وين عزيمة يالطه فيش وين ديالطه ورشينها أركسان موت استعمالته فكريه isagoo inaan yara oo 22 jira oo jaamacad jooga oo qism falsafa dhigta oo sanadkii labaad ku jira ayay fikradani gashay inuu China bedelo qiyaas arday yaro jaamacad dhigto second year laakiin warrumaystay inuu wax bedeli karo sax ya qalad bedelkiisu midku doonahaado yani wuu u halgamay inuu China bedelo waanu bedelay waxaynu u baahanay azaim iyo sabir waxaynu kala u baahanay waqtigii waxa filayo inuu iska dhamaadiyo xusnu dhanni billah in ilaahi ku kalsoonaato qadiyatu alhijra wa garanaysa ma dhannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma nabi maxamed sagoo qura iyo Abu Bakr kaliya iyagoo god ku jira oo la isdul taago Ilaahi Abu Bakr la Ilaahi rasuulkiisa waa la arkaya ayuu nabigu wuxuu ku yiri ma dhannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma Abu Bakr maxaad u malaynaysaa labo إلهي يصدح وياه سبحانه وتعالى يعني لبا الله ولمانه يا معيد يسهل جرتوا قولي سنيه اذا حسن الظن بالله ملف يعني انه الهي كقمنا ان نقوصن وحين قالوا باهنهي العمل الدؤوب عمل جوجتا انه سمينه عمل كدغال قرمها حينو باهنهي عمل ضد السدمانتي مؤسساتنا مساجدنا قرآن كدغيسان دعوة شيغيسان مساكين توحسينيسان قودينتا عيد قودينيسان قفكو الشقاده halka kaga haboon waa inuu qabtaa war taariikhda waxay noo tilmaamaysaa cid mafiiq taariikh ku gashay mafiiqintay laagt mafiiqda soo taqaaniin xaaqin waxa wax lagu fiiqo lagu xaaqo xaaqin bay taariikh ku gashay gabadhi nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam gabadhii madal bayda masaajidka uu uga dhisay buulka yar masaajidkiisii gudihiisa ayuu buul yar ka dhisay nabigu oo gabadhaas ay u hooyato gabadhaas ay taal kale iyo wax kale ay qabato ma hayso laakiin waxay og tahay bulshada muslimka inay wax u qabato wax qabadkeedu wuxuu noqday markaas inay masaajidka xaadho maaltii dambe geeriyootay dabeetana saxaabadii inta la maydho la kanfay oo lagu tukaday baa la iska soo aasay nabi maxamed waxba loogama sheegin waa la iska deefudaysaday salaam miskiinada oo masaajidka xaadxaadi jirtay waxay nabiga kaga lugoyn inta Allah aasay baa la soo nabigu maaltii dambe yiri war meeda islaanti markaas la yiri waqti geeriyootay ilaahay rasuulkiisiyo hal aadantumuni bu nabigu war maxay igu soo sheegi weydeen haday geeriyootay maxay igu soo sheegi weydeen xalaasheeday tusan xalaasheedii intuu tagay nabigu buu ku soo tukaday la tusay taariikhda haweentani waxay ku gashay mafiiq waxa laga baahan inaad shaqo qabato qof muslima baa tahay inaad wax qabatid war masaajidka wala fiiqa taariikh lagu gala idan dadku wada haliyay dagaalama iyo jaran maaha laakiin dadku qof wal oo bashariba contribution buu leeyahay wax uu qabanaya waxa la inooga baahay waxa weeyaan al-amal ad-da'ub inaynu la nimaadno oo aynu soo saari karno bulsho muslima oo taariikhda gali karta waxaan filayaa walaalkay wuxuu ii dhinac fadhiyay inuu ii sheego inay dhamaatay anna waxaan idin sheegayaa oo harraja dhigine maanta ugu fiican tahay hore u socda wallahu a'lam billahi tawfiiq